السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي ودي سلام يا خيار تاكي كلا سعتو فضلا سبسكرايب لايك شير كسو دواد عروسة بلا عود كو ديارن دونو aroosada iyo diyaarinteeda waxyaabaha la isku qurxiyo jirka maanta hadaba waxaan ka hadlaynaa waa cream cup waa baxay kule qaar badan way arkeen laga yaabo magaalada Hargeysa inay ku yaalo qofkii magaalada wadanka joogina kule meel kasta uu ka helaya cream cup meel kasta uu yaala cream cup waxa weeyaan waa sida scrub kale waxa loogu talagalay in lagu nadiifiyo wajiga iyo jirka waa la isticmaalaa waad soo qaadaysaa waxaad marinaysaa wajiga marinaysaa jirkana waad marinaysaa in yar ma kugu yara qalalo 2 minute kadib ayaa kugu qalalo ayaad saa uga burburinaysaa si uu qaado dead skin dhan wuxuu sameeyaa dead skin ku qaadaya madmadowga ay blackheads ku qaadaya wuxuu qaadaya wax kasto hadhka iyo waxaas oo dhan ayuu ka qaaday waa cream dabiici ah 100% qiimihiisuna hooseeyo wax yar oo jaban ku soo helaysid weeyaan waxaad kala marin kartaa meelaha hoose sida kilooyinka hoosta inta baad marin kartaa marka yar ku deyso baad ka burburinaysaa kadibna waad ka maydhanaysaa waxaad kaloo sameynaysaa markaad imka ku jirto markaad xamaam maqribiga sameynaysid sidoo kale xamaam maqribiga soo naqaan marka hore saabuun maqribiga lagu maydhayo laga xoqayo kadib marka saabuun maqribiga lagu maydho kadib ayaa waxaad sameynaysaa wad isku isaga kadib baad jirka marsanaysaa jirkii wajiga waxaad marsanaysaa jirkii wajiga in yar ma kugu yaalo sidaas leeyahay iska burburinaysaa waxaad arkaysaa markaba jirkaaga nuuraya waad laasimi kartaa oo waxaad sameyn kartaa adigoon xamaam maqribiga ku galin gurigaaga intaad iska dhigato ayaad maalintiiba waxaad sameyn kartaa wajigaaga toddobaadkiiba 2 jeer baad marsanaysaa subaxii markaad soo kacdo kale ama duhurkii xilligaad waqti hayso ayaad wajigaaga marinaysaa kadibna waad ka burburinaysaa waad ka maydhaysaa jirkana sidaas leeg ayaad u marinaysaa waa karin faa'iidooyinkiisu aan la soo koobi karin oo halkan maanta ku soo koobi karahay inta dalooladu biinaya madowgu biinaya wasakhda jirka xagga hoose ku jirto dhan buu soo saaraya waa karin dabiici ah oo maasha Allah faa'iidooyinkiisa la yaabay insha Allah ka faa'iideysta dhamaantiinba waxaan rajaynayaa inaad faa'iido badan ka heli doontaan soo iibsada markaa marsada insha Allah waad mahadsantihiin dhamaantiinba ma jecelina inta in ka badan idinku sii dheereeyo inkastoo faa'iidooyinkiisu badan yihiin laakiin kale waad ila arki doontaan markaad isticmaashaan fadlan subscribe taabo channelka Caruusada haddii aad ku cusub tahay like and share asxaabtaada ku caawi aroosadaha iyo hablaha kaleba dhamaantiin waad mahadsantihiin waana idin